waxa waa laga baxay ولا حاجات شفتها ليه ما تبغى عنها انا قررنا بس هاي تبي حفيظ ولا الله مصوري ما هي صورة ما مصوري حاجه ديت كفيري ترى هذا شو صار ديت كلام مدعي هاي دي مرة أنا ليش هاي ديار متى ما هي واحد لا ما قال كان فوق صدق شيء انت لا تسبس مو ايرانيه زي كانوا ضعيفه هاي مبلغ بسم الله الرحمن الرحيم ما أنت تاريخه تهاي 17 جون 2019 xafiiska xeerlaalinta wuxuu la wadaagayaa saxaafadda in dadweynaha uu sheego in kiiskii Caaisha ee maxkamadda darajada koowaad gobolka Nugaal ay ku xukuntay dilka saddexda eedeysan oo kala ahaa Cabdifataax Cabdiraxmaan Warsame Cabdishakuur Maxamed Dige Cabdisalaam Cabdiraxmaan Warsame dilka ay ku xukuntay xukunkaas oo ay racfaan ka qaateen saddexda xukumane qareenadooda maanta ay taariikhdu tahay 17 bisha 2019 waxaa soo gaaray xafiiska xeerlaalinta guud qoraal ah inay mudeysay kiiskii ay racfaansanaha ka ahaayeen saddexda xukumane xafiiska xeerlaalinta guudna uu ka yahay racfaansane inay mudeysay maalinta Sabtida ee soo socoto taariikhdu tahay 22 bisha 6 2019 sagaalka aroornimo wabillahi tawfiiq wixii su'aalaha diyaar baan xagee lagu qabanaya marka maanta su'aal gobolka Nugaal xarunta gobolka Nugaal baan lagu galayaa insha Allah taala maadaama howlkaas uu weyn yahay kiis dadweynaha u furana uu yahay si shacab badan uga soo qayb galaan sida kii hore oo kalaan u qabanayna insha Allah taala marka eedeysanayaasha hadda xagee ku xiran yihiin xabsiyada Puntland bay ku xiran yihiin mid kamida xagee marka garow waa maqleen laga kaxay xagee la geeyay hawshaas howladiinta lama xabsiyada garow mid kamid ay ku xiran yihiin maalinta Sabtidana garmaqalkooda halka lagu dhageysanaya Puntland waa Puntland adinka mudan